السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaastaan Nation TV qodobada warkaan idin kugu haynana waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhow booqday xarunta guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha qaranka halkaas oo kulan gaar ah uu kula yeeshay madaxda guddiga iyo shaqaalaha ku howlan qabanqaabada doorashooyinka kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay qaarkood ururada siyaasadda ay dalbadeen in hal bil dib loo dhigo jadwalka ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka inkastoo aan si faahfaahsan loo cadeyn sababaha rasmiga ah ee codsiga haddana waxaa jira mugdi iyo su'aalo ka dhalanaya ujeedada dhabta ah ee dib u dhigista lagu dalbaday sidoo kale shirkii golaha wasiirada ee lagu waday inuu qabsoomo maanta oo khamiis ah ayaa baaqday shirkii golaha wasiirada ee lagu waday inuu qabsoomo maanta ama khamiis walba ayaa baaqday iyadoo warar qaar ay sheegayaan in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay saaka ilaa xalay ay ku jiraan kulamo gaar ah xogaha soo baxaya ayaa tilmaamaya in inta ka horeysa safarka madaxweynaha ee uu sabtida ku aadayo Algeria ay dhici karto isku shaandheyn kooban oo lagu sameeyo golaha wasiirada iyo xilal kale oo dawladeed isbedelkaasi ayaa la rumaysan yahay inuu taaban karo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xilalka hadda haya halka kuwa banaanka jooga ay heli karaan fursad magacaabis cusub inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin haddana qaar ka mid ah wasiirada shirka bari laga baajiyay ayaa muujinaya walaac ku aadan in isbedelkaasi saameyn ku yeesho 24 shaqaale oo saarnaa markab booyadeedka Heles oo ku jiray qolka badbaadada safety room ayaa banaanka u soo baxay iskuna dhiibay kooxdii afduubatay markabka burcadbadeed ayaa isticmaalay gantaalka RPG7 si ay u soo saaraan shaqaalaha markabka iyagoo dhuftay albaabka qolka waxaase dhaawac culus ka soo gaaray mid ka mid ah kooxdii burcadbadeeda oo loo maleynayo inuu ahaa ridihii qoreyga markabka ayaa hadda u soo jeestay xeebaha Soomaaliya iyadoo ay bad qabaan dhammaan shaqaalihii saarnaa shirkadda maraakiibta Greega ee Latisco Marine Management ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in markabka uu si buuxda gacanta ugu jiro kooxda burcadbadeeda Soomaalida ah warka Nation TV waxaa ka mid ah ciidamada deegaanka Canfarta iyo kuwa dawladda dhexe ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday ciidamada Tigreega ee soo galay waqooyiga Canfarta ciidamada deegaanka Canfarta iyo kuwa dawladda dhexe ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday ciidamada Tigreey ee soo galay waqooyiga Canfarta ciidamada dawladda Itoobiya ayaa bilaabay weerar rogaal celis ah oo ay ku qaadayaan xoogaga Tigreey ee ku sugan deegaanadii ay xalay qabsadeen guud ahaan warkii Nation TV na waa naga intaa